السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي وحرين سودو هذا ميل والبا كسوغنتين وحاني ليا ومركل إي مقال كلو عصب سودو هذا مقال كينان أريمة مهمة أيان وغهد لدونا بإذن الله الكريم هو والبآد وأنفع دونه سودو هذا سفاعا لقيهينن إي أما هي إن شاء الله waayo waxyaabaha aan ka hadlayo waa waxyaabo aad u weyn ee anfici doono aadna ka soo mahad celi doontaan haduu Ilaahay idmo sababtoo ah mar walbo waxaan isku taxalujiyaa waxyaabaha aad wax ka faa'iideysan inaan soo geliyo waxyaabahan caruurta ahna waa waxyaabo waqti aan ku bixiyo barashadooda ma fahamtiin gabdho waayo waxaan arkay Soomaalida ilmahooda aad u weyn inay uga baahan yihiin xagga caafimaadka oo ahaa caafimaad dhaqtar bis ma ahan xagga cuntada iyo xagga qaab dhismeedkooda jirka iyo cunuga maskaxdiisa qaabka loo koriyo iyo waalidiinta qaabka caruurta oo la tacaamulaan waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo waqti aan ku bixiyo mar walba barashadooda ilaa haddana ii socdo alxamdulillah meel fiican ii marayo marka waxaan rajeynayaa waxyaabo badan inay iga faa'iidi doontaan hadduu Ilaahay idmo waay riyadeyda ahayd aniga markasto in aan saacido caruurta Soomaaliyeed waxyaabaha ka maqan anaga wadankeena aad u weyn aan ugu soo kordhiyo waxyaabo badan hooyo kasta oo i daawanaysan waxaan leeyahay ku bishaareyso waxyaabo badan oo maskaxdaada ka guuxi jira iyo waxyaabo aad ogeyn halkan inaad ka heli doontid sababtoo ah hooyooyinka badankooda waxyaabo badan isku baraarugsaneen ayaa jira iska sahalsadaan oo xagga ilmaha ku saabsan fiidiyoga hadaan guda galo fiidiyogan wuxuu quseeyaa mar waan u maleynayaa in aan ka soo hadlay aan fiidiyo ka sameeyay ilmaha waxyaabaha ay ku cayaaraan muhiimadda ay u leeyihiin laakiin si fiican uma faaqadin run ahaantii waxaa jiraan waxyaabo badan oo ilmaha waxtar u leh maskaxdooda haddii aad rabtid cunugaaga cunug caqli badan koriimadiisa dhameystiran hadduu kuu noqdo qodobada soo socda aad u weyn u dhageyso insha Allah waxyaabo badan ayaan rajeynayaa guri walba oo Soomaaliyeed inuu ka bedelmo Soomaalida badankooda dad baadiyaas ku soo dhaqmay adeeg iska haystay oo waxay ahaayeen dabcigooda iyo dhaqankooda intaba iswato ilmaha lama siiyo waqti ilmaha lama siiyo waxyaabaha ayaga afkaartooda ah waxyaabo lama dooradsiiyo oo cunuga fikradiisa inuu ka hadlo aad ay u yartahay waalidiinta sameeya arinkaas ma fahamteen saali ashligeeda jiilba jiilku ka dambeeyo waxyaabo badan oo hore looga baran ayaa ku soo kororo waayo adduunkan isbedelo badan ayaa ka dhaco isbedel walbana uu saameeyaa qofka bini aadanka ah meeshii joogtaba ha noqotee ilmaha koriimadooda waxaa lambar 1 u ah cunuga markuu dhasho in aad mar walba aad la hadli kartid cunugaaga oo aad u sheegi kartid hadaa u qubeynaysid hadaan siinaysid naas hadii aad dhar ka bedelaysid xafaayad hadaa u xiraysid dhamaan waa inaad la hadli kartid cunugaaga laakiin hooyooyin badan kuma baraarugsano oo waxay isleeyihiin sidee ula hadlay qof aan hadlaynin ma ogtahay cunugaaga wax walba inuu ka maqlaayo oo waliba caloosha hooyadiisa markuu ku jiray in uu maqlaayay hadalka ku hadashidoo kaleeto inuu caadi u maqlaayay mala socotaa laakiin uusa asaga aad u darinsaneen inuu hadli karo wax walba aad kula hadashid cunugaaga wuu fahmayaa wuuna maqlayaa ma fahamte saali ajligeeda waxa wanaagsan waxay tahay hooyooyinka mar walba waxyaabaha wanaagsan oo waliba anaga diinteena islaamka ayna fareyso in ilmaheena aan ku dabaqano oo mar walba aan u sheegno quraanka aad u akhrisid cunugaaga dhar markaa ka bedelaysid aad tiraahdo hooyo maradaan ku xiri rabaa xafaayadan ka bedelayaa hooyo ma fiican tahay saaka see ahayd subaxii oo kaleeto markuu soo kaco hooyo xala see ahayd in aad u sheekeedid cunugaaga maskaxdiisa way furfurmaysaa mar walba wuu ku fiirinaa indhaha kuu saarayaa wuxuu raadinayaa hadallada dadka dhan kaagu ka raadinayaa shanqartaadu ka raadinayaa markaa meel ka soo socotid wuu la socdaa dareenka hooyanimada in uu ku jiro cunugan oo dhaqdhaqaaqaaga waxaaga dhan ayuu dareemayaa saali ajligeeda marka ilmaha maskaxdooda way ku furfurmataa cunuga lagala hadal badan yahay ama dadka ay la hadlaan ama hooyadiisa noqoto ama dadka kale la jooga noqoto waa cunugu ka hadal dhow yahay oo si fiican u hadlayo
haddaa aragtid ilmo badankooda iska aamusan waa ilmo lala hadleynin oo hooyooyinka aysan la hadlin eesaba siinin jaanis hadal ah. waxyaabaha guryaheena badanaa maanta ka jira Soomaaliyeedna waxaa lambar 1 ka ah cunugii ama telefishina loo daaraya markuu dhasho, ama haddii kaleeto taleefana loo dhiibaya markuu soo gaaro 4 bilood 3 bilood iyo wixii ka koreey meelaha loo dhigaa uu fiirsanaa indhihiisaas waxay arkaan ayuu raacaya. cunugi ma hadlaayo, hadal ma yaqaano, indhihii dhibaato oo geysatay. mamnuucna waxaa ka ah cunug ka yar sanad iyo 6 bilood in taleefan wala telefishin indhihiisa lagu aadiyo, waayo indhaha caafimaadkooda uma wanaagsano. ilmaha ha yaraadaan ama ha weynaadaan laakiin way ku sii kala dhib badan yihiin oo cunuga markuu yar yahay aad bay u dhibayaan. aftiinkaas oo kaleeto aad buu u dhibayaa. marka hooyooyinka waxa la gudboon waxay tahay in ay bartaan ilmahooda waxyaabaha ay ka doonayaan oo caawinaada ah, sida inay la hadli karaan cunugooda, in ay sii karaan agabka ay ku ciyaari karaan ilmaha. kaliya cayaarta qaabka ee Soomaalida u aaminsantaha ma ahan. ma ogtihiin hooyooyin haddaad tihiin ilmihiina maskaxdooda inay furfurmayso marka aad u soo iibisid agab cunugaaga uu ku ciyaaro, oo weliba agabyadan oo xoogaa lambarada la isgelgelinayo kaleeto la isku aadinayo kaleeto ah, cunugaaga inuu fikiraayo oo isku aadinayo midba midka kaleeto uu leeyahay uu ku aadinayo, midibada uu fiiri karo noocay kale leeyihiin, iyo waxyaabo badan oo waxaa ku jira ilmahaaga maskaxdooda kor u qaadayo, firfircooni badan siinayo. in uu ku xisaabtamo xarafba xarafkuu leeyahay waa in aad beri kartid cunugaaga, waqtina aad geli kartid si uu maskaxdiisa u noqoto maskax update ah oo maasha Allah ah, aad u furfuran, caqligiisana kaala arag ah. hooyooyinka badanaa waxaa wanaagsan taas inay ku dhiiranaadaan oo mar walba ilmahooda waxyaabaha waxtarka u leh ay u sameey karaan. waxa kaleeto oo ka qayb qaato cunugaaga maskaxdiisa inay hay ay noqoto ama cunug caqli badan uu noqdo cunugaaga, in aad u dhameystirtid naaska. mar walbana barnaamijkaas waa ku celceliyaa naaska cunugaaga ilaa 2 sano u dhameystir. wax cudur daara malihid haddaysan jiro ama xanuun kaleeto uusan jirin. ilmaha hooyooyin badan waxaa jiraan jecel ilmaha isku nuug inay ka dhigaan. adiga baa taas caafimaad kuuguma jirto, cunugaagana uguma jirto. ha fiirin hiblaayo way dhashay ama cunugay haysataa, laakiin fiiri caafimaadka ku jiro adiga iyo awlaadaada dhexdiina. mar waa mar oo ilmaha koriimadooda caafimaad weyn ayay ka helayaan, marna waa mar oo adiga naftaada ayaad waxa uga heli kartaa caafimaad aad u ballaaran. marka xaafada xoogaa booqbooqiska xaafada dirisa igu dhigan oo cido xoogaa iska qeelinaya, marka karaal noqda daashan qare maqashiin. marka asxaabta qaaliga hooyada caafimaadka waxa ugu jira waxay tahay waa in ay isku laasimidaa cunugeedaas 2 sano naaskiisa inay u dhameystirto. bil kasto caanaha naaska qaab ayay isku bedelaan, fitamiino gaar ah kusoo darsoomo. waa wuxuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalo waaye ilmaha in naaska loo dhameystiro. diintana way sheegtay, quraanka wuu sheegay, wax walba waa laga hadlay xagga diinta iyo xagga quraanka intaba. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuu noo sheegay dhamaan isku duuduubo intaas faa'iidada ah qaata gabdho. ilmihiina naaska ka gooninina haddii markaas adiga xanuun oo kaleeto oo aad cunugaaga naas aad sii karin aad qabtid, Ilaahay kaana jeeyay markaas ma aan sheegin, laakiin si kaleeto cunugaaga naaska uga goonin. ilmaha iska dawdhow iska dhaafa, wax walba Ilaahay qadara, laakiin wax walba dadaal waaye. dadaala oo mar walba caafimaadkiina ka taliyo. hooyo dhexda u dhuuqsan noqo. hooyo mar walba quruxdeeda iyo dadnimadeeda mar walba ku faanto noqo. maanta haddii intaa dhowr cunug isku xixijidid caloosha ay ku weynaato, adiga dhan faad uu ku galo, sheeg faca waxba mala qaybsan kartid, cudur darisa u noqone, ilmo waxba ugu mataalid oo mar walba waxa taa qof aan dhakhtar ka dhamaaneynin iska jooji. marka gabdhaheena badankooda ayagoo yaryar ayaa waxaa moodaa islaamo waaweyn qaabka muuqaal ahaantooda shakligooda uu noqdo uu isku bedelay. biliis waxaad sameedaa adiga isku roona oo mar walba waxaad sameysataa waxyaabaha aad isdhigi kartid, waxyaaba caafimaadkaaga ku jira. mara isku roonaatid waa mar walba caafimaadkaaga kor uu noqdo. waxyaabaha marka ilmaha maskaxdooda kobciyo kale waxaa ka mid ah digaaga, hilibka guduudan, malayga, kalluunka
malaay waa isku mid, ukunta, qudaarta noocyadeeda kala duwan, hadday ahayd avocado, hadday ahayd liin macaanta, karootada, spinachka ama koostada, waxyaabo badan ayaa cunuga maskaxdiisa ama ilmaha maskaxdooda aad ugu sameeyo qaabab cusub oo tadawur ah ama horumarin ah, si cunugaas cunug maasha Allah ah oo u noqdo maskaxdiisa iyo caqligiisa iyo jismigiisa uu iskula socdo. Ku dadaal waxyaabaha aad siinaysid cuntada cunugaaga iyo cabitaanaadka aad siinaysid, furuudyada aad siinaysid, caanaha aad siinaysid noocay yihiin, adiga naaskaaga caanihiisa hadduu yaryahay cunuga 2 sano uu ka yaryahay, dhammaan iyo waxyaabihii kaleeto aad ku saacidi kartid sida tamriinaadka ama haddii kaleeto jirdhis aad u sameey kartid oo kale, jimicsiyada, ciyaarta ilmaha waqti aad u goosa aad u sameedid oo mar walbo intaa la fariisatay cunugaaga u tustid sida agabka ciyaarta maskaxdooda furfureyso laisku gelgeliyo, laisugu aadiyo, aad ku imtixaantid, aad tirahdid hooyo isgelgeliyo kaleeto. Waqtiga ilmaha ay yaryihiin inaad la hadli kartid oo mar walba aad la sheekeysan kartid cunugaaga markuu soo gaaro 8 bilood 9 bilood oo kaleeto in aad u kala taataabi kartid, dharka u gelinaysid aad dhigi kartid hooyo kan maa kuu geliyaa midabkan, si kanaa kuu geliyaa, gacantiisa ku taataaban si uu ula qabsado. Markaas waxaa leedahay kanaa kuu gelinaa maantay, xafaayadoo kaleeto dhowr midab aa soo ag dhigay, 2 midab 3 midab, waxaa leedahay kan maa kuu geliyaa, kan maa kuu geliyaa, may kanaa kuu gelinaa aa leedahay, waa soo qaadee waa u gelinay, waxaa leedahay kanaa qurux badan kanaa kuu gelinayaa, hooyo waa ku jiifinaa, hooyo waa kuu qubeynaa, waxyaabahaas oo kaleeto dhan ilmaha inaad kula hadli kartid waaye. Marka hooyooyinka waxaan rajeynayaa waxyaabo badan meeshan inay ka intifaaceen ay ka faa'iideen aan isleeyahay, wax badan ay uga baahan yihiin barnaamijyadan wacyi ahaan iyo mar walba afkaarteyda in aan soo gudbiyo, aan inay iraado sidaas sameeya. waan iniga mahad celinayaa qaabka quruxda badan oo ay soo dhaweyseen, mar walba isu badgareedaan. waxaan leeyahay ilaahay abaalmarin wanaagsan haniga siiyo. abaay marka waxaan kaa codsanayaa fiidiyogeena maanta intaasuu noogu egyahay, waxaan kaa codsanayaa biliis hadee kuu tahay markii koowaad aa ii timaadid horta subscribe ii saar, ii like garee, muuqaalkeyga meel alla meesha kaa hortimaado dhig, gaarsii si hooyo badan oo Soomaaliyeed ee ugu intifaacdo. haddii awal aa ila joogtaa kuu soo hartay, abaay waxaa kaa codsanayaa subscribe waaba ii tahay, laakiin waxaa ii saartaa ii like garee. like-ta waxyaabo badan oo waxay iga caawinaysaa muuqaalkeyga meel sare inuu gaaro, hooyooyin badan ay arkaan, anigana wax ay iga faa'iidaan, anna aan wax ka faa'iido. ma fahamte? waana kaaga mahad celinayaa waqtigaaga quruxda badan, qaabka meeshan aad u soo gelisay, aad ii siiday chance aan afkaarteyda iyo waxyaabaha aniga igu jiro in aan kula wadaago, iyo sida quruxda badan oo waqtigaaga qaaliga ah halkan iigu siiday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.